kulan wacan daawada waa mar kale iyo barnaamijkeena taxanaha sirdoonka ee siyaasadda waan ku eegay qodobo ay ka mid yihiin ruushka uu yeeray ciidankiisa kaydka si loo soo afjaro howlgalka dalka Ukraine. madaxweyne Vladimir Putin ayaana amar ku bixiyay in la gaarsiiyo 300 kun oo askari ciidamada ka howlgalaya gudaha dalka Ukraine. si guud madaxweynuhu waxa uu amray in la kordhiyo ciidanka Ruushka tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka. barnaamijkeena taxanaha sirdoonka ee siyaasadda ayaan si gaar ah ugu eegi doonaa howlgalka Ruushka ee dalka Ukraine, waxaanan si gaar ah ugu falanqeyn doonaa Ruushku miyuu ku guuldareystay howlgalka Ukraine kadib 210 maalmood oo dagaalku socday. Vladimir Putin wuxuu xilligaani ugu dhawaaqay in howlgalka la kordhiyo maadaama uu hore dhowr jeer u sheegay in sidii la rabay ay wax u socdaan. kursigiisa miyuu saameyn karaa howlgalka Ruushku ma guuldareysan doonaa mise uu guuleysan doonaa? 12 su'aalood oo dul hoganaysa howlgalkan ayaan ku eegi doonaa barnaamijkeena taxanaha sirdoonka ee siyaasadda. balse intaynan u gudagelin fadlan ka mid noqo saaxiibada ku xiran bartayda Facebook si aad ula socoto maalin walba barnaamijka taxanaha sirdoonka ee siyaasadda. wixii talo iyo tusaalahan inoogu reeb qaybta hoose ee commentiga. mahadsanid. kulan wacan daawada mar kale. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u yeeray ciidanka kaydka waxaana wasiirkiisa difaaca Sergey Shoigu uu amray in ciidamada Ruushka ee ka howlgalaya Ukraine la gaarsiiyo 300 kun oo askari si guudna tirada ciidanka Ruushka kor loo qaado tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka. iyadoo duulaanka Ruushka uu galay maalintii 12aad waxaan ku eegi doonaa barnaamijkeena taxanaha sirdoonka ee siyaasadda dhowr qodob oo ku saabsan guusha iyo guuldarrada Vladimir Putin ee dagaalka Ukraine. ciidamada Ukraine ayaa sii wada iska caabinta howlgallada Ruushka ee bariga iyo gobolka waqooyi bari Kharkiv. Putin ayaa amray ciidamada in cagta la mariyo Ukraine 300 kun oo ka mid ah ciidankiisana la gaarsiiyo si loo soo afjaro howlgalka Ukraine. waxaana isa soo taray wararka sheegaya in ciidamada Ruushka ay ku guuldareysteen furimaha hore ee dagaalka. dhawaan Ukraine ayaa la wareegtay 4,000 oo kiiloomitir oo isku jibaaran oo ka tirsan gobolka Kharkiv. sida laga soo xigtay hay'adda qaramada midoobay u qaabishan qaxootiga in ka badan 12.6 milyan oo qof ayaa ka qaxay dalka Ukraine tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka. dad badan ayaana magangelyo u galay dalalka deriska. xogtii ugu dambeysay waxa ay muujinaysaa 6,414,787 qof in ay galeen dalka Poland, halka 1,169,027 qof ay galeen dalka Romania, halka 2,593,209 qof oo Ukrainian ah ay u qaxeen gudaha Ruushka. sidoo kale 1,391,738 qof ayaa waxa iyaguna iska dhiibeen dalka Hungary. 778 kun ayaa iyaguna iska dhiibay dalka Slovenia, halka 60 kun ay galeen Moldova. 16 kun oo kalena waxa ay u qaxeen dalka Belarus oo deris la ah dalka Ukraine. inta badan shacabka Ukraine ee qaxay waxay u badnaayeen haween iyo caruur, halka ragga da'doodu u dhaxaysay 18 ilaa 60 jir laga codsaday in ay dalka ku sii sugnaadaan si ay ula dagaalamaan ciidanka Ruushka. khilaafka diblomaasiyadeed oo in muddo ah soo socday ugu dambeyntii ciidamada Ruushka ayaa duulaan ku qaaday Ukraine kuwaas oo duqeymo ka fuliyay caasimadda Kiev. madaxweynaha Ukraine ayaana ku celceliyay in ay Ukraine isdifaaci doonto. taariikhda Suufiyeedka. Ruushka iyo Ukraine waxay ka mid ahaayeen 15kii jamhuuriyadood ee Suufiyeedka ee ka koobnaa Midowgii Suufiyeeti. burburkii Midowgii Suufiyeeti kadib sanadkii 1991 Ukraine waxay ku dhawaaqday madax bannaanideeda 24kii bishii Agoosto. mid kasta oo ka mid ah dalalkaasina waxa uu ku dhawaaqay madax bannaanidiisa dhuleed. xornimadii kadib Ukraine waxay ku dhawaaqday in ay daadiso dhaxalkii boqortooyadii Ruushka oo ay xiriir dhow la samaysato reer galbeedka cadawga ku ah Ruushka. 30kii sano ee la soo dhaafay Ukraine waxay soo martay 7 madaxweyne kuwaas oo dalka ku hagayay wadooyin reer galbeedka farxad geliya, balse Ruushka cadaawad u muujinayay. sanadihii 2005 ilaa 2014 ayaa waxa Ukraine ka qarxay dibadbaxyo lagu dalbanayay ka mid noqoshada Midowgii Yurub iyo gaashaanbuurta NATO ee Mareykanku uu hogaamiyo.
Putin oo dadaal ugu jira dib u soo noqoshada Sofiyeedka ayaa dhowr jeer ku celceliyay in Ruushka, Ukraine iyo Belarus ay yihiin hal qof oo ay qayb ka yihiin ilbaxnimada Ruushka ee taariikhiga ah, balse Ukrainiyiintu way diideen sheegashada. Sanadkii 2021, Vladimir Putin oo ahaa wakiilkii hore ee sirdoonkii Midowgii Sofiyeeti ee KGB ayaa saxiixay sharci asal ahaan awood u siinaya inuu xukunka sii joogo ilaa sanadka 2036. Intee bay la egyihiin Ukraine? Ukraine waxaa lagu qiyaasaa 44 milyan. Dalku wuxuu ka kooban yahay 24 gobol. Tirada shacabka Ukraine ayaana hoos uga dhacday sidii la filayay. 5. Saamaynta NATO iyo Yurub ee dagaalka Ukraine. NATO waa isbahaysiga militari ee ugu awoodda badan adduunka, kaas oo ka kooban 30 waddan. Deriskooda ama taagtikadooda koowaad waa in ay ku ilaaliyaan wadamada xubnaha ka ah qaab siyaasadeed iyo mid ciidan. Ruushka ayaa ka soo horjeeda saldhigyada NATO ee ku dhow xuduudiisa, wuxuuna codsaday in damaanad qaad qoraal ah laga bixiyo in NATO aysan isku ballaarin doonin bariga Yurub. Mid ka mid ah shuruudihiisa ee Kremlin-ka ayaana ah in Ukraine aanay marnaba ku biiri karin ama aan loo ogolaan in ay ku biirto gaashaanbuurta NATO. Tallaabadaasi ay u aragto khad cas. Mareykanka ayaana diiday in uu aqbalo dalabka Moscow. 6. Iska horimaadka militari ee reer galbeedka iyo Ruushka. Ruushka ayaa leh mid ka mid ah militariga ugu awoodda badan adduunka, wuxuuna ka mid yahay 5 waddan ee ugu dhaqaalaha badan xagga difaaca militariga. Sanadkii 2020, Ruushka waxa uu ciidankiisa ku qarash gareeyay 61.7 bilyan, taasoo ka dhigan boqolkiiba 11.4 kharashka guud ee dowladda. Marka la barbar dhigo, Ukraine waxay ku bixisay 5.9 bilyan ciidamadeeda qalabka sida, 8% kharashka guud ee dowladda, sida ay muujinayaan daraasadaha ciidan. Tan iyo markii ay xiisaduhu bilaabmeen, xulafada isbahaysiga NATO ee Mareykanku hogaamiyo ee ka baqaysa Ruushka ayaa dagaalka Ukraine taageeradooda ay u hayaan u laba jibaaray. Mareykanka kaliya ayaana 15 bilyan oo dollar ku bixiyay dagaalka Ukraine. 7. Saamaynta saliidda iyo gaaska Ruushka ee qaaradda Yurub. Ruushka iyo Ukraine labaduba waxa ay qani ku yihiin saliidda iyo gaasta. Ruushku waxa uu leeyahay kaydka gaaska ee ugu badan ee la xaqiijiyay ee adduunka oo dhan, 88,938 cubic mitir oo kayd shidaal ah ayuuna haystaa. In ka badan 70% kaydka gaaska dalka waxaa gacanta ku haya shirkadda Gazprom oo ah shirkadda ay leedahay dowladda Ruushka. Ruushku waxa uu bixiyaa 3 meelood meel gaaska dabiiciga ah ee Yurub laga isticmaalo. Cunaqabataynta reer galbeedka ee Mareykanku hogaamiye ayaana khalkhal tamarta ah ka dhalisay qaaradda Yurub, maadaama ay dhoofsan jireen gaasta Ruushka. Bishii February 22, Jarmalku waxa uu joojiyay ogolaanshaha dhuumaha saliidda Nord Stream 2 oo ah mashruuc dhismihiisu uu ku kacayo 11.6 bilyan, kuwaas oo gaasta Ruushka gaarsiinaya qaaradda Yurub. Ruushku waxa uu kaloo leeyahay kaydka saliidda ee ugu weyn ee la xaqiijiyay 80 bilyan oo fuusto, ama 5% wadarta guud ee caalamka ayuu ka yahay kaydka shidaalka. Ukraine sidoo kale waxay leedahay kayd baaxad leh oo saliid ah iyo gaas ah, waxaana ay haysataa 395 milyan oo fuusto. Siday u kala horeeyaan, waddanku waxa uu ku yaalaa ilinka laga garo reer galbeedka ee qaaradda Yurub, taas oo sii sahasha ama sii fududeysa in gaasta dabiiciga Ruushka loo dhoofiyo Yurub. 8. Saamaynta dhoofinta qamadiga Ruushka ee Ukraine. In ka badan 4 meelood meel ka mid ah dhoofinta qamadiga adduunku waxay ka yimaadaan dalalka Ruushka iyo Ukraine. Cunaqabataynta dhaqaale iyo tallaabada militari ee Ruushka ayaana laga yaabaa in ay saameyn weyn ku yeelato qiimaha cuntada adduunka, iyadoo laga cabsi qabo cunno yaraan soo food saarta caalamka, iyadoo ay soo dedejiso in la raadiyo bedel kale. Ruushku waxa uu dhoofiyay 407 bilyan oo badeecooyin ah, halka Ukraine ay dhoofisay 49 bilyan sanadkii 2019. 9. Wadamadii ayaa inta badan ku tiirsan saliidda Ruushka. Sanadkii 2019, dhoofinta saliidda ceyriinka ee adduunka ugu sarreysa waxay ahaayeen Sacuudi Carabiya, waxaana uu dhoofiyay 145 bilyan, halka Ruushku uu dhoofiyay 123 bilyan, halka Ciraaq ay dhoofisay 73. Canada ayaa 67 bilyan dhoofisay, halka Mareykankuna 61 bilyan uu dhoofiyay.
Shiinaha ayaa iibsaday qiyaastii rubuc ka mid ah 27% wadarta guud ee saliidda Ruushka uu dhoofiyo. Qiimaha ayaana gaaraya 34 bilyan. Si kastaba ha ahaatee, marka la eego baahida tamarta weyn ee Shiinaha, tani waxay ka kooban tahay kaliya 60% saliidda. 48 wadan ayaa ku tiirsan saliidda Ruushka, waxaana ugu horeeya wadamada Bariga Yurub. 10 wadamadii ayaa iibsada hubka Ruushka. Ruushka ayaa midka labaad ee ugu dhoofinta badan hubka adduunka, wuxuuna lambarka labaad ka yahay caalamka, halka lambarka koobaadna Mareykanka uu ka yahay, isagoo qiyaastii 20% iibka hubkan adduunka u dhoofiya. Intii u dhaxaysay sanadihii 2016 iyo 2020, Moscow waxay iibisay 28 bilyan oo hub ah, waxaana ay ka iibisay 45 wadan. Ruushka ayaa ku dhawaad 90% iibkiisa hubka u dhoofiya inta badan 10 wadan. Macaamilka ugu weyn ayaana ah Hindiya ayaa 3% hubka Ruushka ku iibsatay 6.7 bilyan. 5 sano ee la soo dhaafay, nus ka mid ah wadarta guud ee hubka Hindiya waxa uu gaaray 49.3% waxay ka yimaadaan Ruushka. Shiinaha waa kan labaad ee ugu iibsiga badan hubka Ruushka, waxaana iibsaday 5.1 bilyan. Isla muddadaasi waxaa ku xigtay Algeria oo iyaduna ku iibsatay 4.2 bilyan, halka Masar iyaduna ay ku iibsatay 3.3 bilyan. Vietnam ayaa iyaduna ka mid ah, halka dalalka kale qaar ka mid ah ee Yurub ay iyaguna ku jiraan kaalimaha kale. Waan filayaa in aad wax badan ka fahamteen. Intaas ayaan kusoo koobayaa warbixinta aan ku eegayo howlgalka Ruushka iyo awoodihiisa. Wixii talo iyo tusaale inoogu reeb qaybta hoose ee commentiga. Fadlan la soco barnaamijyadeena dambe oo ku eegi doono howlgalka Ruushka uu amray iyo guud ahaan sirdoonka caalamka. Mahadsanid.